xagee ka yimaadeen dadka Soomaalidu xagee ka keeneen dhaqanka ay wataan luqadda ay ku hadlayaan xagee ka soo jeedaa yeeyse isku asal yihiin yey isir wadaagaan yaasa keenay dhulka Geeska Afrika barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa taariikhda iyo israaca dadka Soomaalida iyo dhammaan qabiilada la walaalaha ah ee la degan Geeska Afrika magaceyguna waa Maxamed Cabdisalaam dadka Soomaalida iyo dhammaan qabiilada la degan Geeska Afrika ayaan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeegan israacoodii hore meesha ay ka yimaadeen iyo halka ay ka soo jeedaan inta ay dhaqan wadaagaan luqadaha ay ku kala hadlaan iyo wixii keenay dhulkan Geeska Afrika muddooyinkii wixii ka horeeyay 1500 taariikhda milaadiga ee hadda ku jirno haddii aanu ka soo bilowno nabi nuux alayhi salaam nabi nuux waxa uu ahaa aabihii labaad ee bini aadamka hadda nool ee dunida ku nool nabi nuux waa tii ilaahay haligay qoomkiisii kadib markaa uu ilaahay u baryay inuusan midna dhulka uga tegin kuwii kitaabkiisii ka soo horjeestay nabi nuux alayhi salaam ayaa qoomkiisii lagu haligay biyo cirka iyo dhulka intaba isaga yimid oo ilaahay soo diray in lagu haligo waxaana halkaasi oo ku waayay wiilashiisii mid ka mid ahaa oo asagu diiday diinta ilaahay asaga iyo qoomkiisii iyo xaaskiisii intaba nabi nuux alayhi salaam saddexdiisii wiil iyo qoom yar oo rumeeyay ayaa ilaahay ka badbaadiyay biyihii iyo badihii ilaahay ku harqiyay waladaasi diinta ka soo horjeestay nabi nuux alayhi salaam waxa uu dhalay saddexdii wiil oo dhalay waxa la kala oran jiray Xaam iyo Saam iyo Jaafat waa saddexda bini aadamku ay ka kala farfarcameen iyadoo qoomka yaraa rumaysnaa saddexdaas wiil ay kala abtirsadeen balse haddii aan soo qaadano Xaam wuxuu ahaa nin madow ilaahay asaga oo sheegay in bini aadamku oo sida ciidda oo kale midabadeeda kala yeelan doono Xaam wuxuu ahaa nin madow waxaana uu dhalay 4 wiil wiilashii ilmo nuux Jaafat waxa uu aaday dhinaca waqooyi oo waxa duriyadiisii ka farcamay dadka Turkiga iyo dhammaan la isku yiraahdo walooyinkan galbeedka Saamna waxa ka farcamay Asia qaaradda Asia inta badan oo ay Carabta ku jirto Xaamse waxa uu farciisi ku dambeeyay qaaradda Afrika isagoo Xaam dhalay 4 wiil afarta wiil waxa la kala oran jiray Kush Ethiopia walooyinka lagu yeeri jiray Kush ama Kush Ethiopia oo farcankiisu inta badan degan yahay qaaradda Afrika ama bariga Afrika Miserium oo dhalay Egypt oo ay ka farcameen faraacintii Masaarida Put oo ay ka farcantay boqortooyadii Libya oo degan waqooyiga Afrika Kaynaan oo dhalay Hibroogi iyo dadka reer Bani Israa'iil iyo Falastiiniyiinta Xaam ayaa wiilal badan lahaa
kuush laftigiisa ayaa wuxuu sii dhalay wiilal badan oo ka mid ahaa Nimrod oo ahaa boqor oo ahaa ina kuush waa nin kibir badan ayuu ahaayo ay diimaha iyo taariikhdu intaba ka hadleen waxa ka mid ah wiilashiisa kala Seeba Xafiila iyo qaar kale oo badan marka sida taariikhdu sheegtay Seeba iyo Xafiila labaduba waxa ay ka farcamay dadka qabiilada Geeska Afrika si aan u helo cadaynta dadka Soomaalida ah iyo qabiilada la degan Geeska Afrika meesha ay ka yimaadeen asalkoodii ayaa waxaan ku soo qaadayaa 3 qodob baaritaanka taariikhda iyo wixii ay ka tageen qoomkii hore ahraamaha ku yaala dalka Suudaan iyo Masar baaritaanka luqadda Soomaaliga ah ama asraaca luqadda Soomaaliga meesha ay ka timid iyo luqadaha la walaalaha ah dhiigga cidda aan wadaagno iyo cidda inagu dhow haddaan Soomaalinahay si aanu cadaynta qodobadii aan ka soo hadalay u helo ayaa waxaan doonayaa inaan dib ugu noqdo maarumihii hore ee soo jireenka ahaa iyo xilliga ay soo bilowdeen iyo wixii ay taariikh ka tageen intaba boqortooyadii reer Kuush ee ku taalay bartamaha dalka Suudaan ee xaruntiisu ahayd Kerma ee ku taalay webiga Niilka iyo boqortooyadii faraaciintii Masaarida ayaa waxay ahaayeen laba boqortooyo oo isgees degan isku waqtina abuurmay faraaciinta markaan leenahay waa labada dalba ama labadii boqortooyo ee isku waqtiga soo bilaabmay 5,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise ama muddo hadda laga joogo 7,000 oo sano in ka badan ayaa labadaasi boqortooyo waxa ay ku kala yaaleen dalka Masar iyo Suudaan labada boqortooyo waxay ahaayeen laba boqortooyo oo marna col ah marna saaxiib ah waxaana lagu tilmaamaa labadii boqortooyo ee ugu jiritaanka dheeraa kana tagay taariikh la yaab leh oo ilaa iyo hadda bini'aadamku awladha ka faarsan yahay taariikhda labadaasi wadan ay ka tageen waa faraaciintii Masaarida iyo faraaciintii madmadoobeed ee reer Kuush ee iyaduna ku geestaalay labadaasi boqortooyo waxa ay ka tageen taariikh ay ku sharaxeen ahraamta iyo dhagaxyada ku taala dalka Masar iyo Suudaan labadaba labadii boqortooyo ee sagdegana ee faraaciintii Masar iyo reer Kuush oo iyagu isla ahaa laba kooxood deganaana webiga Niilka ayna u suurto gelisay biyaha webiga Niilka iyo barwaaqada dahabkii iyo macdantii dhammaan ay u suurto gelisay in ay dadkaasi noqdaan dad waqtiyadii awoodihii jiray kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ama kuwa ka mid ah ay noqdaan boqortooyada reer Kuush waxaa caasimad u ahaa magaalo la oran jiray Kerma ee ku taala waqooyiga dalka Suudaan ee ilaa iyo hadda ay degan yihiin qabiilka la yiraahdo Beejada ee afka Kushitika ku hadla ilaa iyo hadda ama luqadda Kushitika ku hadla ee ay muuqaalka iyo dhaqanka iyo luqadda intaba ay wax badan wadaagaan qabiilada kale ee Kushitika ku hadla ee bariga Afrika ee Soomaalidu ay ka mid ka tahay ahraamta ku taala dalka Suudaan waxa ay 3 jabaar ama 3 jeer ka badan tahay midda ku taala dalka Masar waxaana laga helay ahraamtii ugu qadiimsanayd ee abid taariikhda reer Kuush waxa kale oo ay dhisi jireen ahraam ka duwan kuwa kale ee Masaarida ama faraaciintu ay dhisi jireen waxaana ay dhisi jireen ahraam u eg sida mudulka ama mudulka Afrikaanku aw imika isticmaalo ahraamta dalka Suudaan ku taala ayaa qaar ka mid ah waxa ay leedahay ama u eg tahay ama ay tahayba mudulka Afrikaanka hadda oo isticmaalo mid u eg iyadoo dadka Afrikaanka inta badan ay ka soo jeedaan boqortooyadii reer Kuush iyo Nubiyiintii deganaa dalka Suudaan iyo Masar reer Kuush waxa ay deganaayeen
dhulka loo yaqaano nuubiya ee hadda ah waqooyiga dalka suudaan. faraaciintii midmadoobeed ee reer kuush waxaa la oran jiray lagu yeeri jiray qaansooleydii midmadoobeed, waxaana ay tumi jireen birta iyo sanaacadda. waxaa kaloo ay caan ku ahaayeen dhoofitaanka xayawaanka sida maroodiga foolkiisa, dahabka, hargaha iyo waxyaabo badan oo ay beec mushtarka u iibgeyn jireen masaarida. ayaga iyo masaarida ayaa waxay ahaayeen kuwo ay beec mushtarku ka dhexeeyo, waxayna ahaayeen kuwo marna cola marna saaxiiba. faraaciintii masaarida ayaa waxa ay aad u danayn jireen xoolaha iyo dahabka iyo sanaacadda ay gaareen reer kuush in ay iyagu la wareegaan awoodda oo ay xoog ku qabsadaan. 1800 oo sano ka hor dhalashadii nebi ciise ayaa boqortooyadii faraaciyadda cusbayd ee faraaciyadda masar ee la oran jiray new kingdom ayaa waxaa wakhtigaas faraacigii madax ka ahaa faraacigii tutmosis-kii koowaad ayaa waxa uu weerar ku soo qaaday reer kuush, waxaana uu qabsaday magaalo madaxdii reer kuush ee ugu horreysay oo ay lahaayeen ee la oran jiray kerma. waxaana kaloo ay dhammaan bililaqaysteen xoolihii iyo dahabkii iyo waxyaabo badan ayay ka bililaqaysteen. reer kuushna waxay dib ugu gurteen dhinaca koonfurta suudaan, oo waxa kaloo ay samaysteen magaalo kale oo marka dambe magaalo madax u noqon doonta oo la oran jiray nabata. tutmosis-kii koowaad marka uu qabsaday magaalada kerma ayuu dadkii uu qabsaday ee reer suudaanka ahaa ee faraaciintii midmadoobeed reer kuush ka soo jeeday ayuu waxa uu ku khasbay inay dhaqanka masaarida qaataan, kaasoo sameeyey in uu waxyaabihii iyo asnaamtii iyo ahraamahoodii uu baabi'iyo oo uu ku dul qoro tii masaarida ay lahaayeen. kadib markii archaeologigu hadda ay soo qodeen taariikhdii kale oo kasii hoosisay oo qariyeen, iyagoo ku muujiyey farshaxanka iyo waxyaabaha ahraamta lagu qoro iyo asnaamta intaba in ay leeyihiin reer masar oo faraaciintii masaaridu ay ku dul sameeyeen. kadibna hadda la ogaaday wakhtigii lasoo qoday, balse waxay ku muujiyeen oo kale inay reer kuush ahaayeen addoommo la addoonsado oo aan waxba garanayn, ayay taariikhda halkaasi kaga muujiyeen. boqortooyadii faraaciintii masaarida ayaa waxay ahaayeen boqortooyadii ugu xoogga weyneyd, uguna jiritaanka dheerayd, uguna ilbaxnimada dheerayd abid ee taariikhda soo mara. boqortooyadii faraaciintii masaarida ayaa waxa ay soo bilowdeen xilligii nebi ibraahim calayhi salaam, ama muddo ka badan 3000 oo sano dhalashadii nebi ciise ka hor ayaa boqortooyadaasi soo bilaabatay. waxaana ay ku bilaabatay boqortooyooyin u dhisnaa sida xisbiyadii oo kale, oo xisbi kasta uu haysto boqortooyada uu xukumo 500 oo sannadood. boqortooyadii ugu horreysay waxaa la oran jiray early dynasty, waxaana ay xukumaysay 500 oo sannadood, taasoo soo bilaabatay muddo lagu qiyaasayo 3000 oo sano ka hor dhalashadii nebi ciise. 500 oo sano kadib ayaa waxaa haddana dhalatay boqortooyo la oran jiray old kingdom ama boqortooyadii hore, iyaduna soo haysay 500 oo sannadood. kadib 500 oo sannadood ayaa haddana waxaa dhashay boqortooyo la oran jiray middle kingdom, boqortooyada dhexe, oo iyaduna soo xukumaysay 500 oo sannadood. kadibna waxaa dhashay boqortooyadii cusbayd oo lagu yeeri jiray new kingdom, waana boqortooyadii ugu caansanayd oo ugu dhibka badnayd taariikhda faraaciinta masaarida. boqortooyadii cusbayd haddii aanu soo qaadano ayaa boqortooyadaasi waxaa ka talinayay tutmosis 1, tutmosis 2, tutmosis 3, mentuhotep, akhenahoten, ramses 1, ramses 2, tutcamuun, xabsibshuud, seta. waa ay badnaayeen. boqortooyadaas ayaa waxay ahayd boqortooyadii xilligii nebi muuse calayhi salaam. ramsiiskii labaad oo xukumayay
67 sano ayaa asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa oo ku abtirsadaa reer Kushayte isaga oo xataa midabkiisu madooba. boqorkaas Ramsiiskii labaad ayaa waxa uu ahaa kii ugu kibirka badnaa, iyagoo kulligood kibiraan ah oo isku sheegi jiray inay ahaayeen Amuun oo mid ay u doortaan ilaahnimo sare oo qoraxda la shaqeeya ayay aaminsanayeen. waxaanu ahaa ninkii bedelay xataa diinta faraaciinta oo hore soo jirtay oo u bedelay noocan oo isagu wax ka bedelay diimihii hore ee ay haysteen. faraacigaas Ramsiiskii labaad ayaa waxa uu ahaa kii xilligii Nabi Muuse sida taariikhdu ay sheegto, oo waxa uu ahaa kii biyaha lagu haligay Ilaahay ku haligay kadib markii uu amar diido ku sameeyay inuu ka haro dadkii reer Bani Israa'iil oo doonayay inuu dhameeyo. Nabi Muuse calayhi salaam waqtigiisii ayaa lagu qiyaasaa boqorkaas, waana kii biyuhu ay haligeen oo hadda aad ka arkaysaan shirkiisii oo yaala oo aan isbedelin, iyadoo boqortooyooyin badan ay yaaliin oo Tutankhamun ka mid yahay ay weli shirkoodii iyo sidooda iyagoo ay yaaliin. Ilaahay isagoo sheegay in ay calaamadahaasi ka muuqan doonaan qoladaas faraaciinta ah ee Ilaahay ka furtay ilaahnimadana sheegtay. boqortooyadii reer Kushayte ayaa dib isku abaabulay oo waxa ay ku qaadatay muddo ku dhow 1,000 sano kadib markii uu jabiyay faraacigii masaariga ahaa ee Tutmosis kii koowaad. boqortooyadii reer Kushayte ayaa waxa uu dhashay boqorro badan ayaa u dhashay oo ka soo baxay dhulkii Suudaan, waana markii ay soo baxday faraaciintii madmadoobeed ee reer Kush. boqorradii reer Kush waxaa ka mid ahaa boqorkii Taxarqa, Piyankey iyo kuwo kale oo badan. boqorkii Piyankey ayaa qabsaday dalka Masar oo dib weerar ugu soo qaaday isagoo ka qabsaday dhulkii Suudaan ee ay xukumi jireen reer Kushku, oo Tutmosis uu qabsaday ayuu dib uga qabsaday isagoo oo dagaalkii sii waday qabsadayna dhulka Masar oo dhan. reer Kushayte oo lagu yeeri jiray qaansooleydii madmadoobeyd ayaa waxa ay qabsadeen dhammaan dalka Masar oo dhan iyo Suudaantii laga haystayba. boqorkii Piyankey ee reer Kushayte ayaa qabsaday dalka Masar oo dhan oo la wareegay xukuumaddii faraaciintii Masaarida. waqtigaasoo ay kooxihii reer Liibiya oo dagaal ogayaal ahaa ay madax ka ahaayeen ayuu dhammaantood dhagta dhiigga u daray. boqorkii Piyankey ee reer Kushayte ayaa markuu qabsaday Masar ayaa faraaciintii Masaaridu waxa ay la galeen heshiis si ay Kushiyintu u sii xukumaan, waxaana isku magacaabay mid loogu yeeri jiray State God Amun ama mid qoraxda la shaqeeya oo isagu Ilaah isku sheega oo ay waxa caabudu jireen diimaha xaggooda. waxaa jiray oo kale boqorro badan oo ka soo baxay reer Kushayte, waxaana ka mid ahaa boqorkii Taxarqa, Kashta iyo kuwo kale oo badan. balse boqorkii Taxarqa ayaa wuxuu ahaa kii ugu taariikhda dheeraa ee abid soo mara taariikhda dalka Masar iyo Suudaanba. boqorkii midooba ee Taxarqa ee reer Kushayte
ayaa wuxuu ahaa kii ugu badnaa ee dhisa ahraamta ugu badan dalka Masar, kaasoo ay ku sharaxan tahay ama uu kaga tegay taariikhdii ugu weyneed ee dalka Masar oo dhisay ahraamaha ugu waaweyn dalka Masar. Taxarqa oo xataa kula dagaalamay Assyriankii iyo Babyloniantii ku gumaysanayay kuna bahdilayay Israa'iiliyiinta dhulka reer Israa'iil ayaa ka saaray oo ka xoreeyay Israa'iiliyiintii lagu gumaysanayay dhulkooda. saddex boqol iyo 21 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise ayaa waxaa soo galay dalka Masar Great Alexander oo u dhashay dalka Macedonia. Great Alexander oo dhisay magaalada Alexandria ee dalka Masar ayaa ninkaasi ayuu xoog waxa uu kula wareegay dalka Masar. Great Alexander ayaa waxa uu ka saaray reer Kushayte oo garab ka helayay Bershiyiintii iyo Assyrianskii intaba oo ay isla ahaayeen Semitic Toga. markaa ayaa reer Kush dib waxay ugu noqdeen dalka Suudaan iyo magaaladoodii hore ee madaxdoodii Nabata. markii ay Greegiyiintu qabsadeen dalka Masar ayaa waxaa xukumayay reer Kushayte. markii ay arkeen dadkan madmadow ee xukumaya dalka Masar ee faraaciintii madmadowed ayay waxay ugu yeereen Autobia, taasoo macnaheedu ay tahay wajigii madooba ama wajigii gubnaa. marka waa marka ay bixiyeen magaca Ethiopia. Alexander Great ayaa markii uu Masar qabsaday waxa uu sameeyay oo uu tixgeliyay in ay faraaciyada Masaaridu sii socoto boqortooyadeedu, waxaana uu sameeyay Cleopatra oo boqoradii ugu dambeysay ee faraaciyada Masar. inkastoo Cleopatra ay xagga hooyada ka soo jeedo Greek iyo Masaari ay iska dhaleen oo ay hooyadeed ahayd Greek, kaasoo ka dambeeyay Great Alexander ama Alexander Great oo ka dambeeyay in ay faraaciyada Masar sii socoto oo ay sii jirto ayuu ku tixgeliyay. inkastoo uu Greegiyiintu ay gabadha Cleopatra abti u ahaayeen, kadibna waa tii ay Romanskii soo galeen oo ay Cleopatrana isdishay oo ay maska isku dishay. waxaa isku sii bahaystay dalka Masar Romanskii iyo Greegii Persianskii oo ku dhexlabnaa dhammaantood ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen faraaciintii madmadoobeed oo markaa deganaa Suudaan oo reer Kushayte ayay dib u soo weerareen, waxaana ka qabsadeen magaaladii labaad ee magaalo madaxda u ahayd ee Nabata. kadibna reer Kushayte ayaa waxay u sii guureen dib oo waxa ay degeen magaaladii ugu dambeysay ee taariikhiga ahayd ee caasimadda u ahayd ee la oran jiray Maroowe ee ku taala koonfur bari dalka Suudaan oo webiga ku taala. reer Kushayte waxa ay soo gaareen ilaa iyo qarnigii afraad ama 400 oo sano kadib dhalashadii Nabi Ciise. reer Kushayte oo lagu yaqaanay in ay deganaayeen Maroowe kuna dagaalami jireen maroodayaasha ayaa waxa ay dagaalamayeen muddo dheer. reer Kushayte iyaga oo ku xogeystay Maroowe maroodayaashan ku dagaalami jiray oo ay dagaal ku dhex mari jiray qolooyinkii la baxay Semitic Toga ilaa ay ka soo gaareen qarniga afraad ee miilaadiyada hadda aan ku jirno ama 400 sanadku markuu ahaa ayaa dadkaasi waxay noqdeen dad markii dambe qarniga afraad la jabiyay. reer Kushaytana waxa ay soo aadeen ama u kala firqeen dhinaca bariga Afrika ayagoo isku noqday dad reer baadiye ah oo meel iska aaday, kadibna qaarba meel iska aaday, waxaana inta badan soo aadeen dhinaca geeska Afrika ayagoo dadkaasi loogu yeeri jiray dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee reer Kushayte. isla waqtigaasna waxaa samaysmay boqortooyadii Aksumite ee boqorkii King Asana ee diinta Kiristaanka ka hirgeliyay dalka Ethiopia oo boqortooyadii sii waday Abbasiniyiinta markii hore ay xukumi jirtay Balqiso ama Seba oo waxa uu ku andacooday ama uu sheegtay ninkaasi inuu ka soo jeedo asal ahaan reer Bani Israa'iil oo boqortooyadii Seba ee xilligii Nabi Suleymaan calayhi salaam
oo iyaduba kasoo jeeday reer Kushayte asalkeedu ayaa boqoradaasi waxa ay xukumaysay dalka Yemen iyo qayb ka mid ah Ethiopia oo la oran jiray Aksum iyadoo Ethiopiaanku dadka reer Ethiopia ay boqortooyadoodu ku abtirsadaan reer Bani Israa'iil sababtoo ay tahay Bilqiso ayaa waxa ay kasoo jeeday Ethiopia sida ay Ethiopiaanku sheegtaan Yementoon xataa ay sheegato balse Bilqiso waa tii diinteenaba lagu sheegay oo ay aaday Qudus oo ay halka kula kulantay Nabi Suleymaan alayhi salaam kadibna uu guursaday ayaa Ethiopiaanku waxa ay sheegaan in ay uur soo yeelatay oo markii ay uurka yeelatay ay isku soo noqotay boqortooyadeedii Ethiopia kadibna halkaas ay ka bilaabatay boqortooyadii Ethiopia oo ay wiilkii ay dhashay ee Nabi Suleymaan ka dhalay oo ay Ethiopiaanku ka soo jeedaan halkaasna uu ku dhashay mililqa koowaad loo baxshay wiilkaasi oo halkaas ay ka bilaabatay Emperoriyadii Ethiopia ama boqortooyadii Ethiopia halkaas ay ka bilaabatay luqadda Kushitigu waa luqad fac weyn oo ay ku hadlaan qowmiyadaha Soomaalida Anfarta Oromada Saahada Eritrea degan Beechada degan dalka Suudaan xaruntii faraaciintii hore ilaa iyo hadda ee waqooyiga dalka Suudaan Sidaame iyo qabiilo kale oo badan waa luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda kale ee la yiraahdo Semitic labadaas luqadood oo la isku yiraahdo Afro-Asiatic oo macnaheedu yahay Xamato Semitic taasoo macnaheedu ay yahay luqadii Xam iyo Sam ee ilma Nuux oo isku darsantay isku dhexmalmatay marka luqadda Semitic waxa ku hadla wadamada waqooyiga Afrika iyo wadamada Carabta luqadda Semitic-na waxa wadamada bariga Afrika uga hadla oo kaliya Tigreega iyo Amxaarada luqadda Semitic-gu waa Arabiga hore ee laga hadli jiray bariga oo ka soo jeeda ama ku abtirsata Sam oo Arab ku abtirsada haddaba luqadda Kushitiga waa luqad fac weyn oo ay walaalayihiin luqadda Semitic Sam oo ina Nuuxa iyo Ham oo ina Nuuxa ayaa labadooda luqadood isku darsameen isku dhexmilmeen waxa la isku yiraahdaa Afro-Asiatic luqadda Afro-Asiatic la yiraahdo ayaa waxay ka kooban tahay Semitic Kushitic Berber Tuareg iyo kuwa kale oo yaryar balse labada ugu waaweyn waxa ay yihiin Kushitiga iyo Semitic waxaan la isku yiraahdaa Afro-Asiatic marka luqadda afka Soomaaligu waa luqadda Kushitiga oo ka soo jeeda boqortooyadii hore ee Kush luqadiisii ilaa ay haddana waxa ku hadla qabiilada Geeska Afrika degan Ethiopia inta aan ka ahayn Amxaarada iyo Eritreaanka iyo Tigreega oo ku hadla luqadda Semitic DNA dadka humanka ah ama dadka bini'aadamka ah waxay leeyihiin guruubo iyo asal iyo isir ay ka soo kala jeedaan dadka Soomaalida ah iyo dhammaan qabiilada degan Geeska Afrika sida Booranta Kenya degan Oromada Ethiopia degan Sidaamaha oo ayaguna Ethiopia ama Omo Valley degan Anfarta oo dhammaan qabiilada ku hadla afka Kushitiga iyo dhammaan qabiilada ku hadla luqadda Semitic labaduba dhiiga waa ay wadaagaan dhammaan intii aan ka soo hadalay ee luqadaha wadaagta haddana dhiiga waa ay wadaagaan oo luqadda Semitic kuwa ku hadla iyo kuwa ku hadla luqadda Kushitiga ee aan ka soo hadalay ee dhinaca luqadaha lagu soo hadalay labaduba dhiiga waa ay wadaagaan markii dhiiga laga qaado haddaba markii la baaray DNA-da ayaa waxa soo baxaysa oo maanta cilmiga technology-ga ee maanta la gaaray ay fududeysay dhammaan dhigaga isugu dhow ee qabiilada dhammaan qabiilada degan Northka Afrika ama waqooyiga Afrika sida hadii laga soo bilaabo Mauritania Morocco Tunisia Algeria Libya Masar Suudaan Soomaaliya Ethiopia iyo in ka mid ah Kenya intuba ay wadaagaan dhiiga DNA-du waxa ay leedahay in dib loo raaci karo 10,000 oo sano in laga gaarayo in dib loo raaci karo oo markaasi la ogaan karo qofba
qofka uu ka sii yahay iyo sida loo kala dhow yahay la soo kala dhow yahay maanta bini aadamku DNA-da sida chromosome kala yiraahdo ama qofka ka yimid nin ama ka farcamay ama naa ka farcamay ayaa waxa loo kala qaybiyaa DNA-da Y iyo XY oo haddii ninku uu ka farcamo Y ay tahay nin inuu ka farcamay qofkaasi oo asalkiisu nin ka yimid iyo inay naag ka yimid labadaas ayaa loo kala baaraa mid oo kale waxaana ogaanaysaa DNA-du maanta inay tahay caddaynta kaliya ee runta ah ee xaqiiqda aadka ugu dhow ama ahba haddaba markii la baaro dadka Soomaalida dhiigooda iyo dhammaan qabiilada la degan Geeska Afrika ee la soo magacaabay ee ku kala hadla labada luqadood ee Kushitika iyo Semitic ayaa waxa ay dadka isugu dhow yihiin dalka Masar iyo Suudaan iyo ilaa iyo Israel ay isku yihiin markii loo fiirsho habla groupka M78 ay isla qaataan labada intaas oo haddana DNA-du waxay ku tusaysaa ma adaa ka yimid mise isaga ka yimid ayaad ku tusaysaa sida falaaraha aad ka arkaysaan haddaba waxaad arki kartaa maanta qof ama madow ama cadaan oo saddexdiis oo ka hor haddii laga soo qaado inuu qofkaasi cadaan yahay saddexdiis oo ka hor oo ahaan karo qof madow oo bantu oo kala ah balse qofkaasi hadda uu yahay qof blonde oo cad waxa arkaysaa markaas inay DNA-du ay isbedelin ay sheegayso balse ay isbedelayso midabka ama dhaqanku intaba ay isbedelaan balse DNA-du isbedelin haddaba markii dhiigga laga qaado Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo Afarta iyo dhammaan wadamadan Geeska Afrika degan oo dhan ama qabiiladan Geeska Afrika degan oo dhan waxaad ogaanaysaa inay aad qaraabo hoose u yihiin wadamada Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya iyo Soomaaliya marka DNA-du waxay ku tusinaysaa qofku ka sii ah iyo cidba uga sii dhowdahay haddii aad maanta dhiigaaga dhigto boqoradii Xabsabshuud boqortooyadii cusbayd 1450 ama 1475 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise ayaa boqoradaasi waxay u soo safartay dhulkan Geeska Afrika boqoradii Xabsabshuud boqoradii ka talinayay faraaciintii xisbigii cusbaa boqortooyada cusbad lagu yeeri jiray daato aan ka soo hadalay markii hore qaybihii hore waa soo hadalay filmka ayaa boqoradaasi waxa ay timid Geeska Afrika iyadoo laba sheeko ay sheegaan inay boqoradaasi soo martay xagga dhulka ama oo ay ka soo dhacday ilaa iyo dhulkan Ethiopia ay soo dhaxmartay oo ilaa iyo Geeska Afrika ay timid iyo in ay badda soo raacday badda cas ka soo dhacday gacanmed oo ay timid dhulkan Eritrea iyo Yemen iyo Soomaaliya ay soo gaartay waxayna halkaasi u yimaadeen in ay ka gurtaan beeyada iyo maydiga iyo carafta iyo waxyaabo badan iyo xayawaan waxaase kaloo ujeedada ugu weyn ay ahayd in dhulkaasi u yaqaaneen dhulka ilaahiyada oo ay dadkaasi ahayn dad aan diid haysan oo ay caabudu jireen qoraxda iyadoo intay dadkaasi buuraha intay fulaan qoraxda ka iftiisan jiray halkaasi oo ay u yaqaaneen dhulka ilaahiyada ama dhulka markaasi uu ahaa dhul ayaga ay markaasi u soo haajiraan oo ay u ahaa dhulkii barakeysnaa markaasi ay ugu yeeri jireen dhulka ilaahiyada ahaa oo xagga diinta dhinaceeda ay u soo leexisay waxaa jiray oo kale taariikh kale oo sheegaysa 2800 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise faraacigii reer Kushayt ee lagu yeeri jiray Saxura inuu yimid halkan Geeska Afrika waxaana ay la soo wariyaa in ay boqorkaasi oo ka gurtay waxyaabaha la isku carfiyay la isku yiraahdo fragrances ama beeyada iyo carafta iyo maydiga oo caanka ku yahay dhulka waqooyiga dalka Soomaaliya iyo waqooyiga bariga waxaana ay la sheegaa taariikhda ay kala ay sheegaysaa in boqoradii Xabsabshuud ay soo gaartay ilaa iyo Xaafuum oo dhulka waqooyiga bariga dalka Soomaaliya ah iyo soo dhacay hawdkan kana guna jiray xabagta iyo waxyaabahaas oo dhan balse ujeedada ugu weyn ay ahayd inay dhulkan u yaqaan dhulka ilaahiyada
taariikhda ama magaca Itoobiya ayaa waxa uu yahay magac taariikhi ah oo ku baxay dalka Masar kadib markii ay Greegiintii markii ay ka qabsadeen reer Kushayte ay ugu yeereen Itoobiya oo ay bixiyeen Greegiintu magacaasi oo ku baxay dalka Masar balse dalka Itoobiya ayaa waxa ay kamid yihiin wadanka ugu taariikhda dheer qaaradda Afrika kuwaasoo soo jiray xilli ka horeysay Nabi Suleymaan calayhi salaam iyadoo ay bilqiso xukumi jirtay oo Itoobiya fadhiday Aksum boqorkii Kingazana markii uu ka hirgeliyay diinta Kiristaanka ayaa markaas bilaabatay maadaama ay bilqiso ka hor waqtigii xilligii Nabi Suleymaan ay ka jirtay iyadoo qayb kamid ah Itoobiya ay xukumisay balse boqortooyadii Itoobiya iyadoo sii socota ayaa boqortooyadii Abyssinia kadib dhalatay oo Itoobiya ahayd halkaas oo ay iska sii socotay ilaa iyo ay ka soo gaaraan boqoradii dambe aan maqli jirnay ee Nagaasha iyo kii kabcada weeraray ee Abraham oo aan boqor ahayn asagu si ahaa nin boqorkii Nagaasha ka horeeyay oo dirsaday oo Itoobiya oo fadhiyay oo u diray dalka Yemen oo ay gumaysanayeen Itoobiyaanku ama Xabashidu ayaa ninkaasi waxa uu sameeyay dadka reer Yemen oo aadi jiray kabcada si ay ugu soo caabudaan wax ayagu ay Ilaahay ugu yeerteen oo asnaam ah oo ay ku dhex guri jireen kabcada waa kii yiri waxaan siisa uba aadin waxaan ka soo duminayaa kabcada si ay uga joogaan reer Yemen waana kii marwadayaasha ka haystay ee kabcada weeraray kana diiday boqorkiisii Itoobiya joogay amarka in uu ka soo noqdo kabcada waana tii Ilaahay u soo diray shimbiraha oo dabka afka ku watay oo halkaas ku dhamaaday ninkaas kadib waa tii uu soo gaaray boqorkii Kiristaanka ahaa ee markii dambe muslimada ku dhintay ee Nagaasha kadibna waa waqtigii Ilaahay quraanka kariimka ku soo dejiyay Nabi Maxamed salawaatullaahi wa salaamu alayhi nabadgelyo iyo naxariis korkiisa Allah ka yeelay Nabi Maxamed markii ay diintu ku soo degtay taariikhdu markay ahayd 610kii milaadiga aan ku jirno ama 610 sano kadib lashadii Nabi Ciise ayaa Nabi Maxamed alayhi salaatu wa salaam waxa uu diinta islaamka ku fidiyay adduunka oo dhan oo waxa uu diray asxaabo iyo ciidamo dalka Suudaan iyo Masar oo lagu gumaysanayay dadkii reer Kushayte oo ay qoladii ama kooxihii Samatictooga ee isbaystay ee qabsaday dalka Masar iyo Suudaan ay bilaabeen dadka madow in lagu gumaysto halkaasi ilaa iyo dadkii madooba oo soo gaareen oo gumaysiga oo balaarto oo ilaa iyo ay soo gaarto in dadkii badaawada Carabtu ay isku hoggaansadaan dadkii madooba oo ay ku gumaystaan meel kasta oo ay dadka madow joogeen ayaa diinta islaamka Nabi Maxamed alayhi salaatu wa salaam ayaa waxa uu diray ciidamo iyo asxaabo diinta islaamka ku fidisa kana xoreysay dadkii halkaas lagu gumaysanayay oo lagu dhibaateynayay iyadoo diinta islaamku ay soo galeen in dadka islaamka la gumaysto ama qof kasta ama cid walba ahaade diinta islaamka waxa kale oo ku fidiya dhammaan adduunka oo dhan Nabi Maxamed alayhi salaatu wa salaam ayaa asxaabadiisa u kala diray adduunka oo dhan iyo ciidamadiisa waxaana markii dambe uu soo diray asxaabadiisii qaar ka mid ah dalka Itoobiya oo halkaasi ay kula kulmeen boqorkii Nagaasha ee Kiristaanka ah ee la sheego inuu diinta islaamka ku dhintay markii ugu dambeysay oo islaamnimo ku dhintay ayaa boqorkaasi uu ku qaabilay asxaabadii markii uu ka dhageystay diinta islaamka ayuu ku raacay oo waxa uu fasaxay in dadkaas la nabadgeliyo kadibna diinta islaamku ay ku fiday dhammaan geeska Afrika waxaana diinta islaamka qaatay qolooyinkii ama kooxihii reer Kushayte ee sida Oromada Canfarta Saahada dhammaan inta aan ka ahayn Tigreega iyo Amxaarada iyo Eritreanka inta aan ka ahayn ay diinta islaamka qaateen ayagoo aan lagu khasbin balse kuwa kalaba qaar ka mid ah ay islaamin xataa diinta islaamka waxa ay dadkaasi ku qaateen ayagoo aan cidna ku khasbin kadibna waxa halka ka bilowday cadaawadii u dhaxaysay Abyssiniyiintii Kiristaanka diinta Kiristaanka Masiixiga ee Itoobiya iyo qabiiladii reer Kushayte oo iska ahaa dadka xoolo dhaqatada ah oo ku kala firqsanaa geeska Afrika oo dhan
kadib markii ay dhammaan qabiiladii reer Kushayte ay diinta muslimka ku qaateen iyagoo aan cidna ku khasbin ayaa waxaa sii batay colaadii u dhaxaysay masiixiga diinta kiristaanka ee Abyssinia iyo qabiiladii kale ee reer Kushayte ee diinta islaamka iyagoo aan cid ku khasbin qaatay ilaa uu ka soo gaaray Axmed Gurey oo kula dagaalamay Abyssiniyiintii iyo Boortaqiiskii ay wateen dalka Itoobiya. Axmed Ibraahim Al-Ghazi oo Soomaalidu ku leynaasto Axmed Gurey ayaa waxa uu kula dagaalamay Abyssiniyiintii Itoobiya iyo Boortaqiiska ay wateen. taariikhdu markay ahayd 1500 Axmed Gurey ayaa waxa uu ku dhashay meel u dhaxaysa Harar iyo Saylac sanadku markuu ahaa 1507 taariikhda milaadiga ah. Axmed Gurey waxa uu ka soo jeeday boqortooyooyinkii iyo saldanadii ka jiray ama ka hirgalay magaalada Saylac ee dalka Soomaaliya qarnigii 13aad. Axmed Gureyna waxa ay Itoobiyaanku sheegaan ninkaasi inuu ka soo jeedo asal ahaan Carab, balse taasi ay tahay mid aan la hubin ee Soomaalida iyo taariikho badan ay sheegaan ay wada cadeeyeen in ninkaasi uu ahaa asalkiisu Soomaali ka soo jeedo. Axmed Gurey ayaa waxa uu ahaa in scholar ah oo diinta islaamka bartay, waxaana diinta islaamka daraadeed uu la galay dagaalkii uu la galay dalka Itoobiya isagoo qabsaday magaalooyinka Casab iyo Masawa isagoo ku sii jeeday xaruntii Aksum iyo Lillabella, waxaana uu gaaray magaalada Lillabella isagoo wata ciidamo badan oo reer Kushayte iyo Soomaali ah isagoo doonayay inuu dhammaan qabsado Abyssiniyiintii xukumaysay dhulkaasi. waxaana Abyssiniyiinta ay u yeerteen Boortaqiis oo ay caawimaad weydiisteen si uu uga celiyo. halkaasna waxaa dagaal ku dhex maray oo isku food saaray ciidamadii reer Kushaytiska ah ee Axmed Gurey watay ee muslimka ahaa iyo amxaaradii ama Abyssiniyiintii iyo Boortaqiiskii. dagaalo badan kadib ayaa waxaa dhacday in Axmed Gurey ku dhacay madfac ay soo rideen Boortaqiisiyiintii. kadibna Axmed Gurey ayaa dhaawac ahaan ugu dhintay madfac ay soo rideen Boortaqiisiyiintii. Axmed Gureyna waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd bishii February 21 1543. dhaqanka iyo hidaha iyo luqadda intuba waa wax weyn in ay dadku haystaan dhaqankooda iyo diintooda iyo waxa iyagu ay hore u lahaayeen ama cid kasta ama bulsho kasta in ay haysato waa mid siinaysa karti iyo awood. waxaana muhiim ah in dadka Soomaalida iyo reer Kushayte ay haystaan luqadooda iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo waxa iyagu ay lahaayeen intaba, iyadoo aad moodo dadka Soomaalida ah ama dhammaan inta kaleba ay wixii hadda ka hor ay ahaan jireen in ay wax kala ay sameynayaan oo ay dhaqankii sii bedelayaan oo luqadii sii bedelmayso. waliba si Soomaalida oo dagaalo iyo colaado iyo qabyaalado iyo dhibaatooyin badan ay aafeeyeen boqolkii sano ugu dambeysay. waxaana jeclahay inaan tuso qayb ka mid ah reer Kushayte ama reer Kushayte qolooyinka reer Kushayte oo kala duwan sida ay isugu dhow yihiin iyo maca qolooyinka kale ee ku hadla afka Samatiga ee sida Tigreega iyo Amxaarada
dhammaantoodba inay yihiin dad wada dhashay oo isku dhiig ka soo jeeda balse kala luqad duwan. waxaana jeclahay inaan ka tuso kuwa qaar ka mid ah reer Kushayte ama qabiilada reer Kushayte sida Beechada iyo Suudaan degan iyo Soomaalida iyo Afarta iyo Saaxada iyo Boorama intaba sida muusig ahaan ama dhaqan ahaan iyo af ahaan ay u kala duwan yihiin oo isku dhow yihiin. qabiilka Soomaaliyeed ee Ciisaha ayaa waxa ay yihiin qabiil aad iyo aad u tixgeliya dhaqankooda oo aad ugu dhagan dhaqankooda markii loo fiirsho Soomaalida kale iyagoo dadkaas ay wali si fiican u haystaan dhaqankoodii iyadoo ay dadka Soomaalida ay xooreen dhaqankoodii oo ay amoodid inay dhaqamo kale iyo waxyaabo kale oo ay Soomaalida lagu aqoon ay hadda la soo baxeen oo ay loobeen cidda ay ahaayeenba iyagoo oo dadkaasi Soomaalida ah dhibaato badan soo food saartay boqolkii sano ugu dambeysay. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa qabiilka Ciisaha Soomaaliyeed iyo qabiilo degan galinka shanaad ee Soomaaliyeed intuba inay aad u tixgeliyaan dhaqanka Soomaalida. waxaana jeclahay inaan wax idinka tuso caleemasaarkii boqorka Ciisaha ee Ugaas Roble oo ka dhacay magaalada Sayla ee dalka Soomaaliya habkii ay u ciyaareen ama habdhaqankii ay u ciyaareen qabiilka dagaalyahanka Ciisaha. barnaamijkeena waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaalida ah iyo dhammaan reer Kushaytaha kuwa kale ee Samatika ku hadla intuba ee qabiilada Geeska Afrika inay dhammaantood ama Kushitika ku hadleen ama afka kale ee Samatika ku hadleen dhammaantood in ay dadkaasi ka soo jeedaan faraaciintii Masar iyo reer Kush oo markii aan soo baarnay xagga dhiigga iyo luqadda iyo waxyaabihii iyo taariikhii ay ka tageen faraaciintii badmadoobeed ee Masar iyo Kush ayaa waxa dadka reer bariga Afrika degan dhammaantood inta badan boqolkiiba 90 ay ka soo jeedaan faraaciintii Masarida iyo reer Kush. anagoo og wixii Axmed Gurey ka dambeeyay in qof kasto Soomaali og yahay inaanu Soomaali nahay ujeedadeedu aan programkan oo ano 15 sano in ka badan barnaamijkan baarayay si aan u helo cadaynta ayaa waxaan ay ujeedadeedu ahayd si ay noo ogaano meesha aanu asal ahaan ka soo jeedno ama ka